Assalaamu calaykum. Waa anigoo Yumaan ku soo dhawaaw muuqaal cusub. Dhageystow haddii ay tahay markii kugu horeysay ee channel-kan aad soo booqato, calaamadda gaduudan ee subscribe-ka taabo, gambaleelka furo si uu kuu soo gaaro fiidiyoo kasta oo aan soo gelino channel-keena. Muuqaalkan maanta waxaan uga hadli doonaa rabshado xalay ka dhacay ciyaartii weyneed ee u dhaxeysay kooxaha Barcelona iyo Real Madrid. Waxa ay ka dhacday ciyaarta sida aan wada ognahay garoonka Camp Nou oo dhaca gobolka Catalonia ee Gooni-u-Goosadka. Waxaa la qiyaasayaa in rabshadaha garoonka ka dhacay ay bilowdeen xilli ay labada koox Barcelona iyo Real Madrid ay ku soo noqonayeen garoonka half-time-ka ka bacdi. Rabshadaha ayaa aad iyo aad u sii xoogeysteen, waxaana loo yeeray booliiska magaalada iyo kuwa garoonka ayaa iskugu tageen kooxaha rabshadaha wadeen. Warbaahinada qaar ayaa sheegaya nin wariye ah oo magaciisa aan la shaacin iyo meesha uu u shaqeeyo ayaa lugta xabad kaga dhacday. Warbaahinta ayaa ku sii shaacisay in xabaddii ay ku dhacday xabad fals ah ay adeegsadeen ciidamada. Waxaan wada ognahay in xalay ciyaartii u dhaxeysay kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ay ku dhamaatay goolal la'aan, eber iyo eber. Dad badan ayaa aaminsan in ciyaartii xalay haddii ay Real Madrid badin lahayd ee rabshadaha garoonka aad iyo aad u xoogeysan lahaayeen. Rabshadaha garoonka kooxaha bilaabeen ayaa ciyaarta markii qaybta hore ee kaambiyada loo baxay oo kaambiyaha dambe markii loo soo noqonayay oo garoonka la soo galay ayaa qarqar weyn dadka garoonka ku jira ay dareemeen. Maxaa yeelay rabshadaha garoonka ayaa laga bilaabay. Waxaan la arkayay dad badan oo garoonka ku jira oo taageeray oo banooni ku soo dhex tuurayo garoonka. Waxaan wada ognahay bilooyinkii ugu dambeeyay inay rabshado isi soo tarayeen gobolka Catalonia oo dhaca waddanka Spain. Dadka Catalonia ayaa aaminsan inay ka go'i karaan waddanka Isbaanishka sida ay wasiirro badan oo gobolka Catalonia ay sheegeen. Shabakadaha qaar ayaa qoraya in horyaalada qaar inay ka ciyaaraan ay doonayaan kooxda kubadda cagta Barcelona ay iskaga baxaan horyaalka Isbaanishka. Dadkii xalay rabshadaha wadeen ayaa waxa ay ka mid ahaayeen kooxda Tsunami Democratic sida aan wada ognahay oo degan magaalada Catalonia ee dhaca waddanka Isbaanishka. Waxaan wada ognahay kooxaha Barcelona iyo Real Madrid inay isku wada dhibco ahaayeen, haddana ciyaartoyda Lionel Messi iyo Karim Benzema inay isku goolal ahaayeen. Balse laakiin taa iyada oo jirto, ciyaarta ayaa taasi ka dhigaysay ciyaar aad iyo aad u weyn ama ka duwan El Clasico-yinkii hore. Abid ma dhicin in ciyaartoyda strikerada labada koox oo isku goolal ah iyo labada koox oo horyaalka isku dhibca inay ciyaaraan kulanka El Clasico. Sida uu sheegay ciyaaryahan Sergio Ramos oo dhahay kulankan way ka duwan tahay kulamadii hore, maxaa yeelay waa inaan isdejiyaa. Waxaan ciyaaraynaa kulan sida finaal oo kale ah. Haddii aan ka badino waxaan galaynaa kaalinta koowaad, haddii ay naga badiyaanna waxa ay galayaan kaalinta koowaad. Dadaal dheeraad kadib waxaa soo gabagabeeyay rabshadihii xalay booliiska gobolka Catalonia. Muuqaalkeenana wuxuu ku eg yahay halkan. Dhageystow mar labaad iyo mar saddexaad haddii aad ku cusub tahay channel-kan, calaamadda gaduudan ee subscribe-ka taabo, gambaleelkana furo si uu kuu soo gaaro fiidiyoo kasta oo aan soo gelino.